bismillaahi raxmaani raxiim. maanta waxaanu joognaa degmada Wadaamago anagoo ah warbaahintii gobolka Saraar. waxaanu soo boqonnay wiilkan daada yar leh Cabdiraxmaan Haybe Qaalib oo ah 12 jir, isla markaasina muddo 10 sano u jiifay xanuun kusoo booday isagoo hal sano jira siday heladiisu noo sheegeen. runtii wiilkan daada yar leh 10 sano iyo xanuunsanayay waa wiil aad u daayar, isagoo hal sano jira ayaa xanuunkan kusoo booday. eheladoodu waxay markii hore deganaan jireen sida ay noo sheegeen dhinaca miyiga, waxayna haysteen xoolo, balse abaarihii dalka ka dhacay ayaa ka dhameeyay xoolihii ay haysteen. sidaa darteed waxaa ka dhammaaday dhammaanba xoolihii haysteen, waxayna nafahooda la soo carareen magaalada Wadaamago oo ka tirsan gobolka Saraar. halkan ayay haatan ku hayaan. runtii gurigan idin muuqda oo ah guri cooshada oo maxay ahayd xoolay halkan laga siiyey ayay ku jiraan oo dhammaantood booheedaan. waxay khatar u yihiin maxay ahayd xoolay dhaxanta, dabaysha iyo roobkaba. sidoo kale jagada ay degan yihiin waxa la sheegay dadka deegaanka noo sheegeen in lagu caawiyay oo ay u jiraan ammaan ahaan ay ugu jiraan oo aanay lahayn. runtii waxay sida heladooda noo sheegeen markii hore wiilkan dawadiisa ayay la daala dhacayeen, wax dawo ay siiyaan uma ahayn. haddase waxaa ugu soo darsantay inaanay hayn waxay ku qoodiyaan oo maxay ahayd xoolay wax masaariif habeerataan haysanin, isla markaa maadaama ay yihiin qoys danyara. halkan waxay la fadhidaa hooyada dhashay wiilkan daada yar leh Sahra Muuse Caynab. hooyo bal kusoo dhawow warbaahinta. waxaad noo faahfaahisaa bal waqtiga uu inanka yari maxay ahayd xoolay uu jiray markii xanuun ku dhacay, inta sanaa uu xanuunsanayay iyo waxyaabaha aad u maleynaysaan markii ugu horreysay heleen. ilmahaas isagoo dee xanuunsan iskala sanad jira la helay intaan dhaqsar iyo dee waxna cidina kuma dayeen. daayimanka waxaa salaam dadka dadweynaha meel kasta ay joogaan dad salaamana salaanka bacdi waxa la ilmaha yar xanuunsanaya waxaan doonayaa inaad naga caawisaan. hanti ma haysano, jaga ma haysano, dee hoy ma haysano, meelan galla ma haysano, dee waad naaragtaan way cuntaan sina ma hayno. sidaa dee waxaan dar la'aanba dee saa u haysa qof dee dar qaba dee sidaas kale ma noqdeen. dee waxaan doonaynaa dee qofkii muslina wixii arkaya daawadaan dee nasoo caawiyaan sida muslimka loo soo caawiyo. sidoo kale waxaanu halkan kula kulnay ayeeyada Caasha Salaam Faarax oo ayay ah wiilkan daada yar leh xanuunkaas siibay. iyada qudheed waxay sheegtay inay waqtiga ay hooyadeed ka maqan tahay oo sii hayso ilmaha yar oo sii xanaanayso, balse hadda ay xanuuno kale la soo dirseen oo aanay awood boo haynin inay maxay ahayd toolay hayso. ay bal ka war adigu imisa sanaad inankan la soo wiilkan daada yar la soo joogto soo xanuunsanay. inanka intii uu jirayba xanuunkiisa waa ka warhayay, waana igu dhowaa, waana ila joogay. marka uu iga maqan yahay igama fogay, waana ka warhayay. inta badanna gurigaabu joogo, dee intaaba taaguma hayna qudhaydu waa uun wehel iyo eegasho iyo agjooguna u wehel yeelo kaybiyaa iyo baadka iyo meelaha usoo warwareegayso. dabeeta haddeerna anigaabaan gabayba intiiba xanuun bay haya. waxa laale wax kale oo maxay ahayd aan meelaan uga soo qaadiya waxaan mas-uul ma jiro, maxay ahayd bara ma jirto, maxay ahayd adduunya ma jirto. dee dabeetana maxaabaan isku biirinaa waa laba ooye islaamu siiyaan, laba isla ooye islaamu siiyaan baan ku jira. waxa la caawiyaa hadday jiraan dadkii la caawi jiray ayaanu nahay, waana ka codsanaynaa in naloogu soo dhaqsado oo nala qaabilo oo maxay ahayd nala caawiyo ayaanu ka doonaynaa xagga ilaahay iyo xagga muslimkaba. nuusalayaanu 7 cisho markiiba 7 cisho 2 maalmood baan kaca kar baan qabaaya waa barakaysana sana ilaahun baan wala caawdaaye maxay ahayd kanun baaba imka sarka dhicis keena iyo awood xumo. daawadayaal sidaad arkaysaanba way ka warrameen ilmaha yar daada yar leh xaaladdu ku sugan yahay hooyadii iyo ayadiiba. sidaad la socotaanbana buulkan cooshada naga dambeeya oo buulka ay u hoyaan dhammaan qoyskan oo dhami dhammaantood ilmaha yar xanuunsanaya, carruurtan halkan fadhida ee faraha badan leh ee qoysku dhalay iyo hooyadood iyo ayadoodba. runtii waxay dee dhibaato ku hayso oo ay u jilicsan yihiin dabaysha, dhaxanta iyo roobka iyo wax walba. dhulka ay ku jiraan waxaa noo sheegay inuu yahay dhul aanay lahayn oo maxay tolay ammaana ah. marka kolley qof kastoo islaama oo dee sadaqa la baxaya waxaa laga codsanayaa inay wax la soo gaadhaan oo hadday dawo tahay iyo hadday qoodintiisa tahayba ay kasoo taageeraan ilmaha yar ee muslimka si dhakhtar bal lagula dadaalo maxay tolay lagula dadaalo. dadkuna inta nool yihiin bay wax taraan. runtii waxaa nala jooga qaar ka mid a culimaadudiinta iyo waxgaradka magaalada Wadaamago oo iyaguna soo booqday ilmahan yar kana warbixiyay xaaladiisa. sidoo kale waxay faahfaahin naga siin doonaan bal faa'iidooyinka ay leedahay waxistarka iyo muslimiinta sida ay soo caawiso. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده magacayga Ismaaciil aw Yuusuf Askar baa la yiraahdaa ilmaha yar waxaan loo sheegay inuu 10 sanadood xanuunsanayay daadiisuna markaa ahayd sanad iminkana dee waad aragtaan qaabka uu yahay waxaa laga waramay inuu xilliga mii joogay kolley dee mala lagula daalay waqtiyo dhakhtar iyo dawo lagula daalay iyadoo dee aan wax weyn loo haynin haddana dee dhakhaatiir markaa maaragtay waaweyn looma sii gudbin oo awoodda iyo baahida markaa maaragtay aan gaarsiinaynin haddana reerkii markaa uu soo xorooday oo xoolihii miyiga iyo ka soo xoroodeen abaarihii bay ka soo xoroodeen halkanay soo degeen halkana sida la sheegayo waa meel aanay markaa iyagu lahayn tembereeri ay ugu jiraan marka waxaan codsanaynaa haddaana culimada iyo odayaasha dadka muxsiniinta ee muuminiinta ah meel kastay ku nool yihiin daafaha caalamka oo daawanaya TV-ga dee inay soo caawiyaan ilmaha yar ee aad aragtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muuminiinta inay is caawiyaan oo isu naxariistaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga waran sidaa la sheegay halkan waxaan ku soo booqanay ilmaha yar ee xanuunsanaya ilmaha waa la sheegay da'diisa intuu leegayna waa aragtaan oo qof xanuun dilooday oo baaralaysa oo iska jiifa oo marna suuxa iyo marna rafanaya sida aan warkiisa ku hayno halku jiifana waa arkaysaan meeshuu hoydaana waa halkaa muuqata waa ku ammaano waana reer dhan oo xaas ah oo carruurtu isaga qura maaha waa carruurtu waa dhowr halkaasay joogaanoo ammaano ku ahoo waabtaasoo la siiyo layidhi ku hay bal muddo intay isugu noqonayso waxaanu leenahay ka codsanaynaa muslimiinta iyo muxsiniinta adduunka meel kasta ay joogto in ilmaha yar iyo la soo caawiyo oo si kastaba loo soo hadday hoy tahay iyo hadday daryeel kale iyo wuxuu cuno tahay iyo hadday dhakhtar la geeyo tahay dee ilmaha yar baaralayska marna suuxaya marna kacaya meel lagula daalay ma jirto salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu caleyhi wasalam waa maxamuud salaad warsame weeye waxaanu galabta soo booqannay ilmaha yar ee xanuunsanaya ee xaafadda wadaamagoo ka mida degan inankaa yar markii hadalhayntiisii iyo aragtidiisii ay dhowr jeer naloo sheegay waxaanu isku daynay wadaadada iyo odayaasha haddanu nahay galabta inaanu soo eegno bal qofkaa yar siduu yahayna waa aragtaan waa qofkaa yar ee naafada ah ee xanuunsanaya muddo badanna jira iminka dhinka 11 jirka lagu tilmaamay waa aragtaan inta uu leegyahay iyo awooddiisa iyo itaalkiisaba waa aragtaan dee caafimaadna malo waa qofka baaralayska sidaa aawadeed markii hore reer miyiga ahaan sida warbixintaba kuwii horeba ku sheegeen iminkana ma dadkii abaarihii soo cayroway weeye xaafadaha ka mida buu yaaliin oo weliba ammaano ku ah guriga iyo meesha ay degan yihiinba waa ku ammaano dadka muslimiinta ah caawimada jecel ee muxsiniinta waxaanu leenahay ha la soo caawiyo bismillahi raxmaani raxiim aniga magacayga wax la yahaa salebaan xaaji faarax xaaji cabdi waxaanu idiin sheegaynaa wixii nin muslimiin ah ee khayrka u dadaala hadday culamo tahay iyo haddii ay baacmushtar tahay iyo haddii ay dowlad tahayba annaga inta nagaga beegani waa inaanu warbixinta keennaa oo dadka iyo muslimiinta iyo dowladda iyo shacabka iyo eheliyadaba inaanu gaadhsiino ayaanu annagu soo booqannay oo u nimi waana aragtaan araggiisuna waa idiin muuqdaa leenahay muslimiinta oo annagu gaadhsiinaynaa nin walibana isagaa khayrka la baxaya aakhiro iyo adduunkaba isagaa la baxayo lehe waxaanu gaadhsiinaynaa dadka aa aragtaan ee laga soo warramay halka ay ku nool yihiin iyo sida ay yihiin waxaanu leenahay isagoo qura maaha in dadka la soo caawiyo daawadayaal sidaad ka aragtaanba culimmadiina way ka warrantay wanaagga ay leedahay iyo faa'iidada ay leedahay in muslimiintu isu gargaaraan oo hadba ka jilicsan loo gargaaro haddii aan si kooban soo koobo baahiyaadka gaarka ah ee qoyskan u baahan yahay lambar 1 waxa weeye horta ilmaha yar in daaweyn lagula dadaalo maxay ahayd hore dhakhtar hantigii dhakhtar lagu geyn lahaa la keeno qodobka labaad quudintii qoyskan oo maxay ahayd hore sidii loo quudin lahaa lagu dadaalo
qodobka saddexaad oo ah in hanti loo dhiso haddii la heli karayo iyo qodobka afraad oo ah in dhulkii degi lahaayeen maxay toole loo iibiyo afartaa qodob baa baahiyaha ugu waaweyn ee qoyskan maanta maxay toolay dee aanu ku soo aragnay ka mid ah waxaan codsanaynaa ama aanu ugu baaqaynaa guud ahaanba cid kasta oo muxsiniina oo wanaagga jecel in lambarada ciddii doonaysa inay wax ku soo tamarrucdo lambarada shaashadda ka muuqda inay ugu soo diraan ama ay kala soo xidhiidhaan wixii faahfaahin ay kale u baahdaana in anaga nala soo xidhiidhaan si aan ugu gudbino ehelada iyo qaraabada maxay ahayd toolay ilmaha yar ee xanuunsanaya